Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Haddii aad isku aragtay lugahaaga jilbaha inta ka hooseyso midabkoodu isbedelay, xaadda ama tinta oo ka hadhay, maqaarka oo qalalay, adkaaday ama qolfoof yeeshay, dareenkoo ku yaraaday, nabro aan bogsanin ku samaysmeen iyadoo dhaawac uusan ku gaarin, cidiyahana bilaabeen inay madoobaadaan, dhowr jeerna aad u tagtay dhakhtar maqaar welin isbedel aadan haynin, waxaad ogaataa inay ciladan hoose ku hayso. Fadlan si fiican u dhegeyso casharkan lana wadaag bulshada. Magacaygu waa Dr. Mahdi, waxaan ka mid ahay dhakhaatiirta ka howlgasha isbitaalada East End. Ciladan waxaa afka qalaad lagu dhahaa peripheral vascular disease. Waa xididada lugaha dhiigga geeya oo ciriiri noqda ama qulqulka dhiigga oo ka xannibma, tanoo keenaysa in lugti heli weyso oksijiin iyo nafaqo ku filan, kadibna isbedesho. Haddii aan la daaweynna keeni karta inay madoobaato oo dhimato. Ciladan waxaa badanaa lagu arkaa ragga da'doodu ka weyn tahay 50 sano iyo dumarka gala xilliga dhalmadayska, sidoo kale dadka qaba ama dhaxalka u leh kolestaroolka, dhiig karka iyo macaanka. Sidoo kale waxaa lagu arkaa dadka cayilan iyo dadka sigaarka aad u caba. Dadka ciladan qaba waxay kaloo isku arki karaan kabuubyo, gubasho iyo tabardarri cagaha laga dareemo, hammi la'aan iyo kacsi yari, cidiyaha lugta oo isbedelo. Ciladan ma ahan mid soo booda ah, si tartiib ah ayay u bilaabataa. Marka hore tinta ama xaadda ayaa gurmaysa, lugta qallayl ayay noqonaysaa, kadibna midabka ayaa si aayar ah isku bedelo, kadib ayay adkaanaysaa oo cuncun yeelanaysaa qallaylka dartiis. Kadib waxaa laga yaabaa inaad xoqdid, sidaasna nabar ku yeelato. Markuu nabarkaas raysan waayo ayay badanaa bukaanadu isbitaalka yimaadaan, ama markii xanuun iyo dikaan ay keento lugta dhiigga ka xirmay awgiis. Xanuunkan markuu cusub yahay wax ka qabasho ayuu leeyahay, laakiin markii xubintu dhimato oo madoobaato, dareenkuna ka tago, waxba looma qaban karo oo inta dhimatay in la jaro ayaa lagu qasbanaanayaa si xubnaha kale loo badbaadiyo. Sidaa darteed, haddii aad la nooshahay xanuunada dhiig karka, kolestaroolka, macaanka, tayroodka ama cayilan tahay, ama stroke hadda kahor kugu dhuftay, ama shaqada kelyahaagu daciif yihiin, kadibna astaamahan aan soo sheegay isku aragtid, waa muhiim inaad dhakhtar la xiriirtaa si talo laguu siiyo loona badbaadiyo lugahaaga. Fadlan faafi fariintan, wixii su'aalahna noogu reeb qaybta commentiska, waana mahadsantahay.